Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan daawadyaal kusoo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo waliba Soomaaliya qaybtanna waxaan ku eegi doonaa haddii Bahar Ali uu ka noqdo fariinta cad ee Mareykanka uu diray iyo waliba diyaaradaha casriga ah ee markan uu ka ixtimaya gebi ahaanba waxaana markan lagu sii fogan yahay bariga dhexe waa la isku qarki doonaa waliba Trump iyo waliba waxa isku hanjabay markan hogaamiyaha cusub ee dalkaasi Iran. Waxaan sidoo kale eegi doonaa maxay ahaayeen diyaaradaha oo aan duuliyaha lahayn waliba sida weyn ridada u dheereeyay Mareykanka waqtigan ka bixinaya gobolka Mareykanka. Haddaba ciidamadii tirada ugu badnayd ee Mareykanku oo mar kale dib loogu celiyay bariga dhexe laakiin markan hawshu waa isbedeshay oo waxaa muuqata in gebi ahaanba markan ay si weyn u howlgelinayaan Mareykanku diyaaradaha aan duuliyaha lahayn xilli markaas inta badan Trump lagu eedeynayay in uu markaasi diyaaradaha aan duuliyaha lahayn uu ka koobiyay Iran. Qabseen rabna saaxiibayaal aynu kugu soo koobno daqiiqadaha yar ee kooban qof kasta oo Soomaali ah oo muuqaalkan aragtida ugu horreeyay arka waxaan ka codsanayaa saaxiib walaal like noo saar muuqaalka like runtii meel dheer ayayna gaarsinaysaa muddooyinkana aad hoos aan ugu sii jeednaa buuxinta shuruudaha YouTube ku xir ayayna uga harsan qof kasta oo Soomaali ah maanta u xiranahay inaan gaaro halkaasi cid kale anigoon bariyna Soomaali weyn ayaa bariya oo waliba inay like noo saaraan mahadsanidin soo saaxiibayaal ku soo biri channelka subscribe saarta si muuqaalada mar walba halka aan ku diyaarno idin soo gaaraan mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilaabay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in markaasi Iran ay burburinayaan ka hor waqtiga la filayo in heerka aadka markaasi ugu sareeyo waligood waa markaasi fogaan arag ay si weyn uga hadli doonaan isagoona ku andacooday in dalalka hadda markaasi uusan lahayn ciidamada cirkaahi ama Air Force loo yaqaano iyo waliba difaaca hawada Air Force isla markaana uu sheegay in ciidamada cirkaahi ay ku dhamaatay waqtigan la jooga xogayaha waa markaasi hogaamiyaha sare ee amniga ee qaranka Alex Alaji ayaa markaasi dhankiisa sheegay in ciidamada Iran ay markaasi ay sugayaan haddii United States ay markan ay duulaan dhulka ah ay ku qaado isla markaana ay diyaar u yihiin inay markaasi iska caabinayaan saraakiisha markaasi sida weyn ugu dagaalama halkaasi Mareykanka iyagoo markaasi dilay in ka badan 10,000 oo askari walibana ceebtii ugu weyn ka raacday Mareykanka. Trump waqtigan wuxuu si weyn u qaban qaabiyay oo uu shaqeeyay arrin la yaab leh oo ah walibana ku aadan in gebi ahaanba marka kani diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gawaarida ridada dheereeya iyo waliba sidoo kale farsamooyin halis ah markaan adeegsaday iyadoona la tilmaamayo in xulufaysiga ugu adag ee markan Trump iyo waliba sidoo kale Iran ay ka dhex furmi doonto. Waxa intii muddooyinkii ugu dambeysay weyn loogu dhursugayay in Mareykanku uu qaadi doono dagaal kale oo ka dhana laakiin shaxad waa uu bedelay markan oo wuxuu u bedeshay in gebi ahaanba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo kaliya uu adeegsan karo marka kani waana qorshaha ugu adag ilaa ay haatan sida adag loogu yaabin yahay bal diyaaradahan markaad aragtaan waxaad inta badan filan kartaan markay ridada ama wax hoos ugu xiran la eeg haddii ay duqeymo ay geystaan waa halis oo walibana khatarteeda leh. Iran haddaba maxay tahay tallaabada kale xigta ay qaadi doonto marba haddii Mareykanku uu shaaciyay in gebi ahaanba marka kani uu u diyaarsan yahay in uu dhulka dhigi doono. waan isla eegi doonaa wixii kale ka soo kordhay saaxiibayaal subscribe ta naga iloobina asaan hore idinkaga codsanay hoosan u dhacana muddooyinkan bal kor noo soo qaada like saara like meel dheer ina gaarsinaysa mahadsanidin.